munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay looguna dabaaldegayay maalinta haweenka adduunka sidoo kalena lagu beegay sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ururka Iftiin oo ah urur ka shaqeeya u qareemida dumarka iyo caruurta kana dhisan magaalada Amsterdam ayaa lagu qabtay magaalada Amsterdam ee wadanka Holland. xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay madaxda ururka Iftiin Shukri Xasan iyo Raaxa Geesay iyo waliba gabdhaha ku dhaqan magaalada Amsterdam. ugu horeyntiina garyaqaanad Shamsa Xasan ayaa sheegtay in kartida dumarka Soomaaliyeed aysan ahayn mid la iska indha tiri karo xilligan. dumarka Soomaaliyeed kartidooda wax la soo koobi karo ma aha oo laga bilaabo tan iyo maaragtay wadankeena markuu xorriyada qaadanayay intii ka horeysay maalin Ilaahay keeno hooyo Soomaali mar walba boos ay ku leedahay qoyska la kaliya ma aha qoyska ay ku leedahay bulshada wax la qiri karo ama la iska indha tiri karo ma oo ah awoodda ama kartida dumarka Soomaaliyeed waxaa muujinaya 25 sano wadan dad badan waa yiraahdaan wadan burbur ka jiro oo dhibaato badan oo loo baahnaa hooyada in badan ah markay hooyo tahay waliba waxyaabo badan oo laga difaacayo leeyahay inay iyadu wadankii oo dhan ay tahay dadka ama dibadda ha noqoto ama gudaha ha noqoto la yiraahdo waa wadankii wuxuu ka dhiman leeyahay waa dumarka anagoo ragii aan eedeynaynin oo aan dhehaynin wadanka waxa burburiye waa ragga laakiin haddana wuxuu ka dhiman waayay wadanka. Raaxa Geesay ayaa sheegtay in hawlo aad u tiro badan uu qabtay muddadii 10 sano ahayd ee uu jiray ururka Iftiin halka Shukri Xasan oo ah madaxa ururka Iftiin ay aad ugu dheeraatay qiimaha hooyada iyo naxariisteeda iyo waliba dhibaatadii ay mudatay muddadii 25 sano ahayd ee wadanku burburka ahaa. ururka runtii waxyaabaha ugu horreeyay waxaa ka mid ah qoysaska diyaalka siigo korinta ilmihii taasoo wadankeena aad ogtihiin anagoo la dhaqankeena iyo waxaynu wadanaa halkan la nimid halkan la nimid mid kale oo ka duwanaan uga imaano marka dhibaatooyin badan ay ummadda Soomaaliyeed ay wadankan kala kulantay dhinaca qofsuudinka ayaa anagoo sida runta oo aad iyo aad xoog u saareen waxa kale oo asagana jiray house like khabar wax la yiraahdo wadanka oo dhibaatooyinka ka dhaca qoysaska ama taasna house like khabar ma kaan leenahay way balaaran hooyo Soomaaliyeed waxay u nooshahay ilmaheeda hooyadu waa hooyo naxariis waa hooyo maaragtay caawinaad badan oo maaragtay mar walba aad u maleysay ilmaha ay dhashay inay maaragtay xiriir gooni ah ama xarig ama fiil isugu xirata mar walba ay dareemayso wax walba u baahan yahay maaragtay in ka caawiso dib walba oo ilmaha soo gaara waa hooyo qofka xaliya oo maaragtay aan ka daalin ama aan ka seexan karin habeenkii ama mar walba ku fakaraysa sida ay ku gaari lahayd maaragtay guul hooyadu waa qofka kaliya oo ilmaha ugu dulqaadka badan hooyada Soomaaliyeed waa hooyo aan maaragtay awood badan waxaa imaatay 24 sano colaad dalkeena ku jira dhibaato qax dadkii ku haray dhibaatadaas ku koray wax ku dhalay waa u malaynaysaa hooyanimada ay maaragtay ay qaateen inay mid aad u adag oo dhibaato badan ay kala soo kulantay haddana sidaas oo kale hooyadaas way ka sii duwan tahay hooyooyin kale waxay ahayd aabbo waxay ahayd hooyo waxay ahayd gacal family qof walba iyada matalaysay. marti sharafta kale oo ka hadashay hadaladoodii waxaa ka mid ahaa haweenka shaqaynaya warshad lagu sameeyo dharka oo ku taala dalka Mareykanka ayaa waxaa jirtay in marka ay ayaga shaqaynayaan iyo ragga ay shaqaynayaan iyagoo isku shaqo ah ayaa haddana mishaarkooda oo kala duwanaan oo kala badnaa ragga ayaa badnaa conditionska ama xaaladda waqtigaas ku shaqaynayeen ma fiicneen marka dhariga maxaa ka keena kuleelka iyo badbadka waa karkareen kabacdi maalintii dambe inta is abaabuleen ayay banaanka tageen ay mudaaharaad dhigeen si ay macna ay u noqoto xuquuqdooda ay u helaan sida ay ragga mishaarkooda ugu leeyahay saas ayay hor ku soo aasaasanay. haweenka Soomaaliyeed waxay ahaayeen haweenka dagaalamayay hadday ayaga jirinna xorriyinimad ma aysan jirteen Soomaaliya qabiil ma aysan lahayn Soomaalinimo ayay u cararayeen waxay jiraayeen dahabkooda naftooda u huraayeen ilmihii diinta waxa ku xigo oo aan kuwaani hawa afkooda mar hadday hooyada ilmaheedina ayna afkii wada ku wada hadli karin waa dhumeen cidaas duulada waxaan arkaa ilmo madmadow ee dadka cadaanka ah ay wataan way xalaaleen waayeen waa laga qaaday waan ka dhanqaday ama u dhanqanayo cunug Soomaaliyeed
ama dowlad kale ay dhasho islaam ah oo cid uusan dhaqan aqoonin la nool ayaa i calool xumaysay maalintaas ayaa waxaan go'aansaday inaan noqdo carruurta dayacan inaan xanaaneeyo. Tawfiiq Shira Muuse, Puntland TV, magaalada Amsterdam ee waddanka Holland.